بسم الله الرحمن الرحيم marka hore saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ee Soomaalnimada oo gulmeen walba joogto shacabka Soomaaliyeed sanad iyo muuqaal waa salaamaya waxaa inay muddo 3 bilood ku kala maqneen hawada waxaa kaloo idin xusuusinayaa inay dawladdu lahayd 3 bilood haddii lahaydno waxyaalaha aan ku jirnay inta waxaan ku sugnaa gobolka Soomaaliya sanad meelo ka mid ah wacyigelin ku wadnay wacyigelintaas oo dadkan ka dhaadhicinayay inay iska difaacaan beesha Soomaaliyeed ka dawladaysa wala ku guuleysanay waxaana ku cadeynaynaa boorkii diyaaradihii ku soo qaaday Soomaaliya sanad meelo ka mid ah inay boobaan shacabka ayaa iska difaacay hubka gurtay xaqiiqda dhabtaana waa sidaas si fiican bay iskaga difaacay weerarka xilli dhulaha lagu soo qaaday wala ku guuleysanay hawlaha ayaanu qabanay intii aynu kala maqneen hadii ay waatay gudoomiye xilligani degmada Taleex ee gobolka Sool waxa ku sugan ciidamo ka socda maamulka Somaliland waan ogsoonahay maalintii Khamiista haydna waxa si rasmi ciidamada Somaliland ay ula wareegeen degmada Balcad ee gobolka Cayn bal arrimahaasi hadii aad ku horeyso amaba warbixin naga siiso bal iyaga laftirkooda sida u aragtaa weerarka lagu qaaday Balcad waxay ka mid tahay weeraradii lagu qaadi jiray gardarrada ahaa goboladan meelo ka mid ah hore loogu qaadi jiray wax cusub maaha aad baanuna uga soo horjeednay diidanahay awaqamadana waa la arki doonaa gardarrada lagu wado ummadda Sool sanad iyo Cayn taasi waa kan Taleex ruuxaasi shacbiga degan dhulka Sool sanad iyo Cayn ma ogola inay Somaliland ay ka taliso dhulkan iyadoo sida la sheegay maqashoonahay oo kamarada meelaha la wareegaya oo dhabarka laga soo taartay iyagana waxaan filayaa in dhabarka laga soo taartay oo meelahooda ku goosanaya nolol maalmeedkooda wax iskuladoo kale oo ay ku hayaan ciidamo hadda tegey oo ku sugan oo aan anigu ogayna ruuxaantii ma jirto ciidamo deegaanka ka tirsan oo horey joogay maamulkaasina uu weeraraay arrimahaana intaan ku ogaay waa intaa waa tahay xaaladda buuhood la wada ogsoontahay xilligan dhaqdhaqaaqyo kala duwan baa ka taagan ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland waxaa la sheegayaa in qaybo ka mid ah deegaankaasi buuhood leh haatan fadhiisimo cusub ay ka sameysteen oo ay duulaan ku yihiin magaalada buuhood iyo deegaanada ku hareeraysan bal aragtiyaan arrimahaasi sida u aragtaa maxaa uga qorshaysan maamulka Khaatumo xaaladahan xilligan soo taraya ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ruuxaantii waan maqlayay waanahay inay Balcad weerareen waan maqlayay nimanka hadlaya hargeysa hansuraya oo warcadda ka mid yahay Fiilaayo ka mid yahay oo doonaya dadkan inay xasuuqaan waxaan leeyahay warcadde tabarkaadana waan ognahay taalkaadana waan ognahay waxaanuna ku leenahay isla keenayo waxba tabadahaynuna doolaha isku adke fiilaayana waxaanu leenahay shacbiga Sool sanad iyo Cayn ku nool meelaha xasuuqa ka dhacay kalshaale hagooga iyo Sool joogto way xusuusan yihiin awaabuxumadeedana waad arki doontaa waadna la kulmi doontaa haddii lahaydmo dadkan Sool sanad iyo Cayn degan buuhoodla deganna way isdifaaci doonaan waxaanu leenahay geed walba iyo meel walba iyo boqol walba uga kaca itaalkooda iyo tamartooda tusa arrintaana waxaanu aragnaa arrin gardaraa waxaanuna baah uga dareynaa arrinta umadaha midoobay baanu u direynaa ururka midooda Afrikaanu u direynaa dowlad goboleedka idal baanu u direynaa caalamkao dhan baanu u direynaa waxaanuna leenahay gardarrada ay ku wadaan dadka degan gobolada
cawaaqibada ka timaada iyaga ayaa mas-uulka noqon doona haddii lahaydo. waa tahay mudane waxaan ogsoonahay in deegaano fara badan oo ka mid ah deegaanada sool sanaaga cayn muddooyinkii ugu dambeysay gacanta maamulka khaatumo ay ka baxeen iyagoo sidaan ogsoonahay ay dagaalami karaan marka deegaanadan lagala wareegayo amaba gacanta khaatumo kasii baxaya ee gacanta Somaliland gelaya maxay tahay ujeedada aad ugu wareejinaysaan balse maxay tahay xidhiidhkan ka dhaxeeya labada dhinac maadaama ogsoonahay in degmada Balicad Khamiistii la wareegay isla markaasna ciidamadii ku sugnaa loogu baaqay ama madaxweynuhu ugu baaqay inaysan dagaalamin miyaa la dhigi karin idinka laftirkiin waxaad u xaglinaysaan dhanka Somaliland wallahi arrinta anigu oran maayo laakiin waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya afka golaha shacabka Sool Sanaag iyo Buuhoodle waxaan leeyahay xukuumadda Cali Khaliif Galayd iyo dadka kuusaasada ay ku heshiisyadiisu dadkan isaga isdifaacaya ayahoodana si buuxda uga imaanayo ka tashan doona waana istifaaci doonaan haddii lahaydo. ugu dambeyntii wax baaqood u diraysaa ma jirtaa dhammaanba shacabweynaha ka soo jeeda deegaanadani baaqa aan u dirayaa dadka shacabka Sool Sanaag iyo Buuhoodle dhammaan yaawga waxaan u dirayaa inay xuduudooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda difaacdaan waa daraawiish baatiin kuwa la dagaalami jirteen tabartooda iyo taalkooda tusa in walba iyo meel walba kaga kaca hubka la soo baxa iska xiriya iska difaaca sidaa ayaan u dirayaa insha allahu tacaalana waxay noqon doontaan inaad ku guulaysataan haddii lahaydo sidaa ayaan u dirayaa iyadana. waa tahay dhegeystayaaalkaasina waxaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Khaatumo State Yuusuf Maxamed Ismaaciil Shirtag aad baad u mahadsantahay gudoomiye.